dabaqyadu waa dhisnay malaayiina lagu bixiyay waay ninkaasi guriga iska leh 100 talaabo oo interlog ah uu sameeyay waay su'aal aad muhiim u ah lacagtii dhaqankaas la soconin dib kale ma jiro markii laga soo tago dawladda servicekeeda inay qabato waa inay ogaataan bini aadanka incomekiisa iyo culturekiisa dhaqankiisa waa isla socdaa hadduu kala hormaran waa dhibaato waxaan ka wadnaa dhaqanka ilbaxnimada ah oo dhaqaaluhu kaliya ma aha bulshada saddexa aydan loo qaybiyaa bulsho ahaan markii xagga dhaqaalaha markii la yiraahdo dad xoogsato oo working class la yiraahdo oo xoogsada waa joorniyey waxaan dhahnaa annaga joornaati maalintaas shaqadooda waxay ku jaan go'an tahay shaqada ay qabsadaan midda labaad qaybta labaad waxa waaye waa dabaqada dhexe waxay haystaan mishaar joogto ah iyo shaqo isku halay karaan haystaan bishiya wax u soo dhaca intuu rabo la ekaado shaqo la isku halay kara haystaan dabaqada dhexe la yiraahdaa midna waa dabaqada sare oo dadka hadda aan ka sheekeynayno private sector-ka ganacsatada iyo dadka maaragtay contractyada qaatay iyo malaha dawladda kuwa oo lacagaha badan helay iyo dabaqada sare oo adiga dhaqaalaha fiican ee xoogiisa haysataa bulsho normal oo stable markii la joogo saddexdaas loo qaybiyaa bulshada inta badan marka waxa la yiraahdaa culture-ka uu isla socdaa qofkan xamaalatada ah yoomiyaadka ku nool noloshiisa la hardamaya dhaqan ma sameey karo oo civilized ah oo ilbaxnimo ma heli karo sababtoo ah duruufaha u diiday hadaan asaga waxbarasho ma helin aqoon ma helin nolol wanaagsan oo ku taami kara ma helin marka markasta xataa waa dad u nugul xataa inay cunfiga iyo gacanka hadalka iyo ay sameeyaan u nugul waay hadda marka leeyahay nimankan argagixisada waxay qoranayaan dhalinyarada shaqo la'aanta waa saas meelaha waxay ka qoranayaan dadka dhibaatada ay haysato laakiin dabaqada dhexe at least qofka mishaarka u soo dhaco bishii qaata jaamacadu tagay waxbarasho helay culture la socdo marka oo hoga yar oo ilbaxnimaha la socota annaga marka waxa laga yaabaa dadka marka dhaqaalaha helay dabaqada dhaqaalaha haysata aniga kulligood ma wada dhahayo waxa la yiraahdaa moogtahay dhaqaalaha waxa lagu keenaa qofka inuu hufnaan leeyahay inuu amaano leeyahay in uu competence karti leeyahay in uu maaragtay leeyahay credibility qof la aamini karo oo yahay dhaqaale qofka sameeya aragtay haddaad marka aragto sifooyin iyo lacag aan islahayn meeshaas mashaakil ka jiro qofka waa inay isleedahay dakhligiisa iyo characterkiisa waa inay isleeyihiin haddaa aragto qof dakhligiisa iyo characterkiisa islahayn lacagtaas waa in la raadiyaa meesha laga keenay haddaa aragto ninkaan nin lagu leeyahay multi-millionaire waaye laakiin aan characterkii qof dhaqaalaha intaas leeg income ama culture-kii soo u hadlaayo soo u labisan yahay etiquette la yiraahdaa waxa uu dooqa uu leeyahay waxa uu dhibsanayo hadday islahayna aragtid lacagtaas waa lacag meel kale ka timid lacagtaas ama shabaabay ka timid ama burcabada ka timaado ama lacag la soo dhaco la soo boobo ha noqoto waa lacag maaha la kasbay maaha lacag kasab ku timid maaha marka kasabka waxaa la socdo character iyo culture dhaqan iyo waxaa la socdo iyo sifooyin wanaaga la socdo aniga waxaan isleeyahay marka labadiyaan annaga isla soconin markii laga soo tago dawladda waxay ka gaabisaa weysow iyo roolka laga gaabiyey ganacsada iyo dad badan oo hanti haystaa aniga aan isdhahaa mararka qaarkood markaa aragto sababtoo ah qofkii oo hanti haysta markii la soo taajiyo hadal la yiraahdo oo goob fagaaraa la keeno ama garnaq la yiraahdo ama aad dhaqankiisa aragto soo cuntada uu cunayo ama soo u labisan yahay ama sida uu xataa u fikirayo markaa aragto soo u fikirayo waxaa is leedahay qofka intuu ka keenay dhaqaalahan ismale macnaha isaga dhaqaalaha iyo qofka ismale marka waxaana ummadahaasna waxaa dhaca la yiraahdaa ummadaha oo dagaalada sokay civil war-ka waay annaga hadda ka hor aniga iyo madaxweynaha sheekh shariif socnaa waxaan tagnay Liibiya qadaafiyaan qaabilnay wuxuuna yidhi nin weyn oo odayaa jooga mar hadda magaciisa inaan sheego oo dadka kamid u dhahay ilaaliya badda Soomaaliya burcabeeda ka ilaaliya waa inaa qaabishiin nin burcabeeda big fish ah oo la yaqaan oo dalka laga yaqaan asaga qadaafi tuhim ninkaas wuxuu ahaa nin ilaalinaya badda Soomaaliya u ahaa qadaafi nin wuxuu ahaa moogta asaga soo kiiska u shaqeynaa burcabeedana waaga shabaabka camal ahayd Soomaaliya si loo baacsanayo macni adduunka
marka waxaa laga yaabaa dad badan oo arkaysa dhaqaaley hayaan ama dabaqyada ay dhisayaan aweyso inay ka dhiseen lacag aan kasab ahayn marka aragto qofa ogtahay inuu yiraahdo qofkan wallahi waa dhakhtar kliinig uu leeyahay ama ninkan wuxuu leeyahay waa macallin jaamacadeed ama ninkan dawladda u shaqeeya agaasimo waaye 10 dabaq dhisanaya marka aragto lacagta waxay ka timid lacagtaas marka culture iyo character lama socdo mana filaysid ba wayhay waxa ku jiray waxaan islahayn dhaqanka ganacsatada iyo hantida ay yeesheen guri milyan lagu dhisay oo hortiisa 1 mitir 100 mitir samaysan waaye dabcan sharaxaadaada aad u bidaaminaysay